maxkamadda sare ee gobolka saaxil ayaa maanta si rasmi ah u ansixisay sagaalka xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Sheekh ku soo baxay natiijadii hordhac ahayd. maxkamadda ayaa halkaasi ku dhaarisay sagaalka xildhibaan ee golaha deegaanka ee degmada Sheekh hogaamin doona muddada 5 sano ee soo socota, waxaana cod gacantaaga lagu doortay maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada Sheekh, iyadoo ay maayirka u tartamayeen Ismaaciil Xuseen Cali iyo sidoo kale Cabdikariin Cismaan Axmed, waxaana cod gacantaaga lagu doortay maayir Ismaaciil Xuseen Cali oo helay 7 xubnood oo ka mid ah 9 xubnood ee golaha deegaanka ee degmada Sheekh, halka Cabdikariin Cismaan Axmedna uu helay 2 xubnood. sidoo kale Maxamed Faarax Axmed ayaa cod gacantaaga lagu doortay inuu noqdo maayir ku-xigeenka degmada Sheekh. barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Xaashi ayaa ku dhawaaqay in ay Ismaaciil Xuseen Cali iyo sidoo kale Maxamed Faarax Axmed ay yihiin maayirka iyo maayir ku-xigeenka degmada Sheekh muddada 5 sano ee soo socota. Ismaaciil Xuseen oo loo codeeyay waxa uu codeeyay 7 cod buu helay maayirnimada ah oo maayirkii magaalada noqon doono saas uu ansax ku yahay. Maxamed Faarax Axmed oo aad gudaha dhexdiina ka doorateen oo doorateen maayir ku-xigeenkiina isagana waxa uu codeeyay 7 cod sidaas uu isaguna ansax ku yahay. waxa uu tartamayay shaqada maayirnimo laba xildhibaan baa soo sharaxay. Cabdikariin Cismaan Axmed baa isaguna maayirnimada soo sharaxay, waxa uu helay 2 cod isaguna hambalyeeyo. waxa gudoomiye ku-xigeenku kalidii buu ahaa, cidina lama tartamin, saas uu isaguna 7 cod ku qaatay oo ansax ku yahay. markii ay soo dhammaatay munaasabadaasi ayaa maayirka cusub ee degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cali iyo sidoo kale maayir ku-xigeenka degmada Sheekh Maxamed Faarax Axmed ayaa u mahadnaqay xildhibaanada doortay una hambalyeeyay taageerayaashoodii soo doortay. bismillaah, runtii waa golahayagu waan isjecelnahay dhammaantood. tartan baanu galnay, tartankuna waa sunne, waana la kala badiyaa, laakiin insha allahu tacaala mid ii codeeyey iyo mid aan codeynba waxaan ku dadaalayaa insha allah inaan golaha isku wado. waxaan kaloo aan maayir u noqon doonaa Sheekh oo dhan, mid ii codeeyey iyo mid aan codeynba. dadweynaha reer Sheekhna aad baan ugu mahad celinayaa insha allahu tacaala. shaqo fiican baan soo qabanay, doorashaan ka soo baxnay, hadda waxaan u gudbaynaa wafiiskii labaad oo ah shaqo noo balana. waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinayaa guud ahaan dadweynaha reer Sheekh, mid ii codeeyey iyo mid aan codeynba. runtii hadda waxaa isbedelay in laba golo deegaan. golihii hore deegaanka uu hogaaminayay gudoomiyaha degmada Ibraahim Cabdullaahi Cabsi meel fiican buu soo gaarsiiyey insha Allah tacaala. anaga iyo tiimkayguna waxaan ku dadaalnaa halka uu soo gaarsiiyey gudoomiyihii hore aan ka sii qaadno oo mustaqbal ifiya insha Allah tacaala higsano insha Allah tacaala. dhammaan waxaan sidoo kale halkan bogaadin uga dirayaa iyo hambaliyeyn bulshaweynta reer Sheekh ayaan iyagana aad hambaliyay taariikh uga dirayaa. waxaan aad iyo aad u dul taagaya hadii la yiraahdo aniga iyo xildhibaanada 9 aan ka mid ahay halkan u soo baxay ayuunba maanta xildhibaana u ah bulshadii aanu sheegto tartamayna musharaxiinta faraha badnaaha intii nasiib u heshay ee aanu soo wada baxnay ayuunba maanta xildhibaanada bulshada metelaya. intii kale ee markaa daan nasiibku halka u saamixina iyagana si gaar ah u hambalyeynaya jaanis kale insha Allah leeyiin. aad iyo aad baan idin salaamay idinkiyo bahda warfaafintaba. waa Faysal Aadan Ismaaciil, telefishinka qaranka Soomaaliland, degmada Sheekh.